أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل فيما يوقع الردة، أما فيما يوقع في الردة أيو فصل يهي. ودرسيني تضباب كمذا كتاب كيني سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. مصنفك رحمه الله تعالى وحو فصل كان وورمي دونا رددي iyo axkaamteedii. fasalkan fasalkii ka horeeyey waxa aan ku soo qaadanay inuu sheekhu yidhi yajibu calaa kulli muslimin yajibu calaa kulli mukallafin calaa kaafati almukallafiin الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. mukalafiinta dhammaantood waxaa waajib ku ayuu dhahay inay soo galaan diinta islaamka, isla markaasna ay ku sugnaadaan si daa'ima, ayna aqbalaan oo laasimsadaan waxa ku laasimay oo axkaamtii sharciga ahayd ah. fasalkan wuxuu kugu bari doonaa riddadii iyo qofku diinta inuu ka baxo, waxyaabuhu diinta uga bixi karo qofku, riddada iyo axkaamteeda ayaan fasalkan ku baran doonaa. wuxuu ku yidhi sheekhu yajibu waxaa waajibaya calaa kulli muslimin, qof kasta oo muslim ah waxaa ku waajibaya xifdu islaamihi, islaamnimadiisa inuu ilaaliyo, iyo wasawnuhu, islaamnimada la dhowrideeda, camaa shay uu ka dhowro, maaga oo yufsidu fasahaadinaya hu islaamnimada fasahaadinaya, oo wayubdilu burinaya hu islaamnimadii, oo wayaqdacu goynaya hu islaamnimadii, wahuwa maagaas islaamnimada fasahaadinaya, burinahaya, goynahaya alriddatu waa gaalnimadii, walciyaadu magangalku bilaahi alla ayuu ahaaday tacaalaa ilaahay sha'nigiisu sarreeye. waqad kahura waxaa batay fii haada zamaani, zamankan oo kana dhexdiisa waxaa batay attasaahulu, fududaysi ayaa batay, fil kalaami hadalka la fududaysto, xataa inahu sha'niye yakhruju waxaa soo baxaya min bacdihim dadka qaarkood waxaa ka soo baxaya alfaadun lafdiyaal ama hadallo ayaa ka soo bixi, alfaada oo tukhriju saaraysa hum naaskii canil islaami, islaamnimada ka saaraysa, walaa yarawna uma arkaan daalika arrinkaas oo lafdiga ahay ku dhawaaqeen danban dembi uma arkaan, fadlan iskaba dhaaf can kownihi ahaanshihiisa kufran gaalnimo uu yahay. والردة 3 أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم يتشعب وحا كفرعومايا شعبا فروع كثيرة فربضا. مصنفك رحمه الله تعالى سان شاقني وحو فصل كان uga waramayaa riddadii iyo axkaamteedii ayuu fasalkan uga waramayaa. marka sheekhu wuxuu ku yidhi yajibu calaa kulli muslimin buu ku dhahay, qof kasta oo muslim ah oo mukallaf ahoo baaliq caaqila, ilan way la socotaa, waayo qofku hadduusan ahayn mukallaf baaliq caaqila uusan ahayn, takliif ma saarno oo xugumkaas yajibu ama dul fuulayo. oo cunugii yarka ah hadduu lafdul kufri ku dhawaaqo looma qabanayo, wuu gaaloobay lama dhahayo. qofkii waalaa ee majnuunka ahaa hadduu lafdu kufri ku dhawaaqo wuu gaaloobay oo yacni gaalnimuu ku dhawaaqay lama dhahayo qofka asaga ah. marka wuxuu ku yidhi yajibu waxaa waajibaya calaa kulli muslimin, qof kasta oo muslim ah waxaa ku waajibaya, waa muslim baaliq ah, caaqil ah, saliimul xawaas ah, balaqatu dacwa, intaasba way la socotaa. dacwadu inay gaadho waa shardi, xawaasta oo araggii iyo indhihii iyo dhegihii inay u nabadgalaanna waa shardi.
marka qofkaas muslimka ah waxaa ku waajibahaya ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado, insi ha ahaado, jinni ha ahaado, waxaa waajib ku ah xifdu islaamihi ayaa waajib ku ah, inuu islaamnimadiisa iyo diinkiisa inuu ilaashado ayaa waajib ku ah, inuu islaamnimada dhowro, uu ka dhowro islaamnimada waxa fasahaadinaya ama waxa burinaya ama goynaya, waxaasoo dhan inuu ka dhowro ayaa waajib ku ah. maxay tahay waxyaabaha islaamnimada burinaya ama islaamnimada goynaya ama fasahaadinaya? wuxuu ku yidhi waxaasi waa riddadii, nacuudu billaah, riddadii wey. riddada markay culummadu ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waa qadcu lmukallafi almukhtaari alislaama biqowlin aw ficlin aw ictiqaadin. waa qadculmukallafi lmukhtaari, waa goynta qof mukallaf ah oo mukhtaar ahoo doortay uu gooyo islaamnimadii uu gooyo. muxuu ku goynahayaa? biqowlin aw ficlin aw ictiqaadin. biqowlin buu ku goyni, lafdi kufri buu ku dhawaaqay, in allaha thaalithu thalaathatin buu yidhi tusaale ahaan. nebi maxamed rasuul ma ahan ayuu yidhi tusaale ahaan. nebi ambiyada ka miduhu dhahay rasuul ma ahan. malag buu yidhi malaa'igta ka mid ma ahan. adiga shay macluumun min addiini bidaruurati uhu beeniyey oo qowl ku beeniyey biqowlin aw ficlin buu ku gooyey islaamnimadii. ficilkaa muxuu noqon karaa? ka sujuudihi lisanamin oo kale, sanam buu u sujuuday, kitaab qur-aanuhu dhulka ku tuuray ama kitaab qur-aanuhu ku istaagay, waa ficil. de wuu ku gaaloobahayaa, diintu uga baxaya, waayo waa istihzaa bikalaami illaahi subxaanahu wa tacaala. idan qofkaasi diintu uga baxaya arrinkaas. kow aw ictiqaadinna waxaa weeye wuxuu caqiideeyey shay kufri wuxuu caqiideeyey oo wuxuu yidhi tusaale ahaan qalbiga ku qabsaday ilaahay inuu saddex yahay, ama wuxuu qalbiga ka diiday awoodda iyo qudrada ilaahay, ama sifo ilaahay sifaadkiisa kale ka miduhu diiday, ama ilaahnimadii ilaahay buuba diidayba, ama salaad wax la dhaho inay jirto yuu qalbiga ka diiday oo ka inkiray. salaad wax la dhaho waajib ma ahan buu yidhi, wuu ku gaaloobahayaa marka qofku. marka waa qof mukallaf ah oo mukhtaar ah inuu gooyo islaamnimadii. mukallaf lagu yidhi maxaa kaa baxay? sabi iyo majnuun hadday lafdul kufr ku dhawaaqaan ama ictiqaadun ay sameeyaan ama ay sameeyaan wax la yidhaahdo ficil ay sameeyaan kuma gaaloobayaan. almukhtaari lagu yidhina dee qofkii mukraha ahaa ee la qasbay ee dhafoorka xabadda laga saaray asagana kuma gaaloobahayo, shaygaasi lagu ikraahay kuma gaaloobahayo. ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaani ayuu soo gelahayaa. idan lafdul kufri asagoo hadduu ku dhawaaqa kaas wixii lagu ikraahay naftoodii hadduu sameeyo kuma gaaloobahayo, laakiin waa inuusan ikhtiyaar kala yeelanin oo wixii lagu ikraahay wax aan ahayn uusan samaynin baa la rabaa. alislaama uu gooyey biqowlin aw ficlin aw ikhtiyaarin, taasaa waxaa la yidhaahdaa riddo la yidhaahdaa. riddadu marka waxay noqonaysaa afxashu lkufri ama afxashu anwaaci lkufri, gaalnimada noocyaheeda nooca ugu xun weeye. wa aqladahu xukman, waana midka ugu adag xagga xugum ahaanta marka laga hadlayo. waayo qofka murtadka ah oo diinta islaamka intuu arkay haddana ka laabtay oo diinta islaamka ka baxay, jizyo looma qiri karo, qofkaas looma sugi karo. oo gaalada asliga ah waxaa bannaan in jizye loo sugo oo jizye laga qaato, layska cafiyo, jizyadaas ay dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda ku ilaashadaan baa u bannaan. asaga jizye looma caqdi karo. sidoo kale lama ammaangelin karo, yacni qof murtad ah qof muslima ma soo ammaangelin karo, laakiin gaal asli ah qof muslima wuu soo ammaangelin karaa. qofkan anuu magan ii yahay, dhulka muslimiinta wuu keeni karaa. qofkaas waa musta'man baa laleeyahay, yacni qof muslim ah ma taaban karo, qofkaas lama dili karo. kow laakiin murtadka intaa midna looma xiri karo, lama soo ammaangelin karo, lalama soo mucaahado lama samaysan karo, jizyana looma caqdi karo. laakiin gaalkii asliga ahabaa khilaafsanoo intaba asaga waa loo caqdi karaa. sidoo kale riddada waxay hoobisaa acmaasha ayay hoobisaa, oo qofka camalkiisi ayay baabiinaysaa haddii ay la xiriirsato mowdka. hadday la xiriirsato
idan waxay ka dhigan tahay qofka murtadka ah asagoonan camal falin waxba asagoona samaynin bay la mid tahay hadduu qofkii intuu yacni 100 sano taqriiban asagoo islaam soo ahaan jiray laxadii ugu dambeysay hadduu ridoobo oo diinta ka baxo oo yacni riddadii uu ku dhinto